السلام عليكم إن شاء الله يلا هدي أتهاي أرض جامعية أما جامعة دكتور أما دراسوين كسمية أما دراسوين كالعلمية اللي سمية إنه أخريت شعل وحما تقوها يا حيرد يتب كوبان أن أنو أدو أديك سدو أنا شعلان كفايدستي تصوأ ما أنت جي بي تي نو أديك سنو دراسة علمية سن أو اللي سمية إنه نلا أخريو إنه تفاصيل شيء حقها هربنا نقصيه ولي بالدراسة أن دورني وحلو يقنا وحل لجو سمية جامعة University of Gothenburg أرضي لو يقنا تاي دمكة أيا دكتورة ثيسسكي PhD رسالة PhD دكتورة وحكى دياري فيتامين دي in Somali women living in Sweden فيتامين دي كتيرة حالة فيتامين دي حبلها أما الضمر كصوماليين يكونوا لدرك سويدن دراسة دان أما رسالة دان وحالة دياري سنة دلوقتي تونستيد مركا وسويدنستان في سويدن ودل قبابة عادية اسكندنافيا كيالا صوماليين ودل dadka imaado weeyaan bariga Afrika dal kulula oo dhul baruhu maro oo kulul dal aaday qabow qoraxda ku yartahay marka maxaa laga dhigi doonaa daraasad nooc ku saabsan waa mid runtii aniga si shakhsi u daneynayay aan rabay inaan akhriyo laakiin maanta waxaan tusiyaa one by one sida aan rabno inaan akhriyo halka waxaa noo yaala ChatGPT noociisa 4o yani qaybo kala duwan ayuu leeyahay 4o baa jira 01 preview baa jira marka haddaan hortiisa akhrin waxaa ku qoran kan kood great for most tasks yani shaqooyinka badi uu ku xalinaya kan 01 advanced reasoning يعني هذا ربتي thinking أم زيادة دراسة ربتي ذو كله وأد وحوسي تحليلسين يعني حاجة slow يعني ما دور بدينه 01 ميني باتشرة ChatGPT 4o ميني باتشرة ChatGPT 4 باتشرة كوي كلام فريقة ما شو كونه باتشرة مركب أنا كان 4o يعني ديكسون دونا سي ما at least وصنعوا بدين مركب تان اسمه ديويو سيدو كله برامجين هروح كسر عني برامج لو يقان perplexity أو أنا إري وميت كأوران كار جوجل يبدل دونا و search engine معهن search answer يعني محرك جوابها بارا مركا waxaan weydiinay what are the essential questions that a research study should answer su'aalaha asaasiga ah ee daraasad inay ka jawaabto ay tahay maxay marka wuxuu noo soo taxay ilaa 7 qaybood oo kamid tahay daraasada jeedka laga rabay wax la mid ah hal by hal baan u tijaabin doonaa ana perplexity su'aalihii uu siiyay ChatGPT weydiin doona filekan ama daraasadan ka kooban 68 page in aan faham ka helno kooban marka waan ku bilaabaynaa waxaan samaynaynaa ChatGPT-gaana tagnay halkaan waxaan ku dhufanayaa pluska upload file ayaan leeyahay marka daraasadda anigu way degsan tahay halkaan ii taalaa markaan furo waatan waan ku soo shubayaa uploading ayuu samaynayaa uploadingka markuu dhammeeyo ka bacdi baa waxaan samaynaynaa isma khaldaynaa waxaan tegaynaa perplexity qodobkii koowaad oo ahayd in daraasad ay ka jawaabto oo ah research focus and purpose يعني دراسة محي فوكس كسارسة محي ستة وجهت كذو أيام وجينينا وسوق بيسنس مدبيو كنترول سي أيام لا هاي أصور الله بنا طبعا تحدى أو يقصر شغل ربا مركب ميدان يكون قدرية مركب سؤال شيء ماشي سوق اليوم طبعا هنكهر مرين دونا سؤال عادي هذا هاي دونا what is the research focus and purpose مركب حرا عندنا حاجة interest ونقطة حاليا generate your responses in Somali. جوابها اسين دونتي أردن في Somali يقول جوابان له. في رلا صعية English حكوا يدين دونا دراسة لحن سديد بيش كوكبنا يسوق لينيا English حكوا يدين دونا وحن سربا إنه في Somali يقول جوابه. ولي السؤال هان ويدينيا طبعا application كلاين كسوقات. هذا أديك كل شخص يقبتني ويدين كرتوا وأنا ويدين دونا واحد دوتان. أيوة كل فننا. حنا سين دونا ترو. حقاير ماشان وبدوديسة. طبعا وسو أخرنا إسلام مركي وبلابه قرالك أيو نصب وبلكوبيا عليه هاي علم بارستان وحلو تلقى إن لبرتو هير كيرانت فيتامين دي يبدو مركز الصوماليات يكونوا ضلك سويدن يسامين تا داوين فيتامين دي وجدد جود وإن لبرتو هير كفيتامين دي حالة ضلفها عذر هذا الحريرة يجود هان عافمات كدو مركز الصومالي مركز لا بربر دو مركز سويدش كأصل كأ في غيب وسيك لغاده heerka ay joogaan UI-ga laga rabo in la barbar dhigo heerka cufnaanta lafaha yani bone thickness lafahooda cufnaantooda ilmo tahay dadku waa kala lafa culus yihiin xaaladdu ku sugan yihiin in la barto saameynta cudurrada kale ee la xiriira yaraanta vitamin D qof hadduu ku yaraado heerkee xanuunku saameynta ku yeelan karo ونص كوه هذاك فمجد يعني وجد علم باريستان وإن لحوتشي عافمات بالشدة الصومالية يكون الوقوية الدونك يعني قال ذلك نورد بول كيفية لان فيتامين دي
أسبابه كشيء دونا طبعا وجدًا يعني هذا page كان أنت درسنا أنا قبته إن هل وآخره طبعا ماشان abstract أكو عدها إنجليش كو قرأته حلقة إنجليش بنا أنقراني بعد كرته إن حبط وآخره سوف فهم قد الاستاجو يردنا لسوق كوب abbreviations كان أنفيريو بدل كسمة بعدي وواحد نتصيه حلقة أنا ما أنت وقتوس تفسير يعني درسنا نهار هل يوم كل دينا والله بنا إنه حلنا هاي scope definition طبعا واسكت حنا حتى واحد ويدين كنا literature review قابك يعني literature كأسمه يسنتها يعني دراسة من هوري لو سميمية ما لما تشران أي كجد وأنت دراسين هوري لو سميجي أي كجد ونان كتب مجرد literature review بدل أساس وين كاسان ويديننا مركا حتى واحد سمينا يا مركا literature review قليو سؤال مرة عنا مرة لا بحسسني إنه سؤال يقول جوابه ولا حكم مشي أنت أسكلي أنا حضها يا كل فنيا جوابته أيو جنريت كرينيا أنا رتشينية صار كسر reading document أيو ليه reading vitamin D وحو آخرنا فايل كآخرنا وحوليه دي وجست علمي وحي ديردا دراسة علمي وحي ديردا صارت يرانت فيتامين D عدد كلاجة تردا بدني حي dadka immigrant soo galootiga dabcan Soomaali kuwa lamidka ah dabcan ayagu markaan Soomaali xoog saarayeen gaar ahaan dadka laga soo qaxiyay dalalka ka hooseeya khadka dhul baraha ee ku nool wadamada waqooyiga yani dadka sab-Sahara ka imaaday qolal si daraasad si kooban waxay xuseen caqabada ay ka kala kulmeen cilmi baarayaashu markay isku dayeen in ay soo ururiyaan qaybgalayaal dadka daraasad ka qaybgalayay ka socda bulshooyinka laga tirada badan yahay waxa kada si kooban waa si akhrin kartaa famza methodology qaab wadada loo maray daraasadan يعني دراسات كودون لو مراجعة ما نوع السمية سامبل من علاقات سيرفي من بحيل السمية وصدق كلام قلنا أيضا وحكى لما صمينيا عوان كان سوق لنا كل فنيا سيدي أوتوماتيكا شوابت أيو سينيا سووا شيء ذا أرسنو ونو آخر دونا وكان مثل قاب كل مرة حب كعلم بارست الدراسات ده وحلو فلي يدور الأديك سنة قاب كل دوان waxaa ka mid ah daraasado isku dayay inay qiimeeyaan saameynta vitamin D ee haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Sweden hababka marka waa maxay daraasad caafimaad oo laba geesood ah habka cabirka oo lafahooda cufta lafahooda la cabirayay qiimeynta tayada nolosha life standardkooda la qiimeeyo qayb kala duwan baa laga fiiriyay uu leeyahay marka tan maanta aan ku socon mayno waxaan dhihi karnaa marka anaga af Soomaali xitaa wax ku weydiin karnaa English ku weydiin karnaa what can we learn about this research maxaan ka baran karnaa su-aasha waxaa weydiinay what can we learn about this research yani daraasadan maxaan ka baran karnaa si kooban dabcan yani ilaa 5 qodob ayuu soo taxay wuxuu yiri kow yaraanta vitamin D waa dhib caalami ah yani mushkilad Soomaali isku kooban maahan baahida daaweynta vitamin D loo qabo saameynta caafimaadka lafaha cudurrada kale ee la xiriira yaraanta saameynta caafimaadka maskaxda jirka su-aasha xitaa Soomaali ku weydiin karnaa gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed soo koob waxa daraasadan ay ka xustay xaaladooda caafimaad Soomaali ku diirina aragna ka jawaabi karaa talo waa buug wax ku qoran daraasad ku qorata English su'aalaha maanta uu diin wax ku diin English jawaab wuxuu nagu siinayay Soomaali su'aashan markaan Soomaali ku diinay jawaab nagu siin doona of course nagu siiyay Soomaali ku fahmay dabcan ChatGPT yani buug hadda kooban weeyaan qoraal kala duwan luqado kala duwan taagelisay waxa jooga yani waa qof khabiir ah luqado kala duwan yaqaan aqoonyahan way araga aad runtii u balaaran oo inta la soo fariistay ala sheekaysan kartid oo dhig kartid ruuxan ii kala dhigniyo aniga ma fahmaya hadda waa kan soo wuxuu yiri daraasad waxay ogaatay in 73% dumarka Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin firafsan adeegsanayo la ildaran yihiin yaraanta vitamin D heerka vitamin D oo ka yar 25 عبر رواج ستاندر مركز سؤال waxaan dhigi karaa su'aale meesha intaan ku dhufto cabirka normalka ah waa imis ayaan dhahayaa fiiri ani mutay caalamihi oo culumta lafaha waxa ku takhasusay waa weydiinaya maadaama kan ii sheegtaan leel cabirka caadi laga rabo waa maxay waa kan vitamin D-ga hadduu ka yar 25 heerka aan ku filnaansho ahayn 25 إلى 50 هيرك كفرا وإنه كبديها 50 يعني 50 MOL/L وحلو أديك سنة جت وعبر له أديك سنة وهدو فيتامين دي وهدو لاتيشن كيري هاي وقفك سو كيري هاي وين العلس لاتيش إلى 50 قفك سوا عين تاولي
konton wixii ka badan oo ku filanta marka dib u laaban xogtana soo akhrisanna waxaa kaloo daraasadu heshay uu leeyahay cufnaanta lafaha soo gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden oo aad u hooseysa caafimaadka guud inkastoo aysan si weyn uga badnayn cudurrada kale marka loo barbardhigo dumarka Swedishka ah waxay muujinayaan tayada nolosha oo hooseysa life standard hooseeyo leeyahay gaar ahaan qaybta caafimaadka jireed physicalka yani laga yaabo inay fahmaysaa jimicsi badan jira hawlo badan jira taas oo muujinaysa in yaraanta vitamin D ay si weyn u saameysay caafimaadka jirka xanuunka murqaha iyo lafaha oo ayadana ku weyn buu leeyahay qaar badan oo kamid ah dumarka Soomaaliyeed waxa la kulmeen xanuunka murqaha iyo lafaha taasoo calaamad u noqon karta osteomalika oo ka dhalatay yaraanta vitamin D يعني osteomalacia waxaan loo yaqaan ku dhici kara maxaa sababay in vitamin D-ga ku yaraado okay dumarka Soomaaliyeed sababtu waa maxay aleen okay way ku caddahay daraasadda aniga ma rabno inaan meesha raadino fiirino inaan soo helin bal in waqti badan ugu qaataa laga yaabaa كو wuxuu yiri soo gaaris la'aan qorraxda yani qorraxda oo jirkooda arkayn qorrax ku dhacayn waa maxay vitamin D waxa uu ka samaysan yahay waxa uu ku samaysmaa maqaarka marka uu qorraxdu si toos ah u gaarto qorrax marka iftiinka ku dhacdo jirka ilaa isku qorraxda ku dhaco jirka ayuu samaysmaa buu leeyahay Soomaaliya waxa ay ku taala dhul baraha halkaas oo qorraxda si joogta ugu jirto oo dadku si fudud u helaan vitamin D balse Sweden oo ku taala waqooyiga fog gaar ahaan xilliyada jiilaalka ama winterka qorraxdu ma jirto ama aad bay u yar tahay qorraxdu winter maadaama ay qorrax badan ma jirto taasoo keenta in jirku si fiican u soo saaro waa vitamin D marka dad ku soo noolaa dal Afrika ah oo qorraxdu badan tahay hadii goor marka tan dal qaboobaha qorraxda sidii rabeen uma helayaan maqaarka madow ayuu haddana u sababeynaya dabcan maqaarka madow caadi qorraxda absorption ku sameeya dadka madmadow sida Soomaaliya waxay leeyihiin melanin waa maadada jirka bini'aadamka midabka siisa Soomaalidu waxay leeyihiin melanin badan oo maqaarkooda ku jira melaninka ayaa yareeya awoodda jirka ee ku soo saara vitamin D marka uu qorraxdu jirka gaarto sidaa darteed dadka madow waxay u baahan yihiin soo gaaris qorrax oo dheeraada marka loo eego dadka cadcad qorrax siyaada u baahan yihiin leeyahay labiska dhaqanka ayuu ka mid u leeyahay dumarka Soomaaliyeed badanaa waxay xirtaan dhar daboolaya inta badan jirkooda sida xijaabka ama dharka dhaqan ahaan daboolaya jirka tani waxay yareynaysaa meelaha qorraxdu si toos ah u gaari karto jirka taasoo si adkeynaysa in vitamin D yani xijaab weyn bay xiranayaan jaakado weyn bay xiranayaan dadka hablaha kale oo cadaanka sidoo kale iskuma qaawinayaan sadar qorrax badan ma helayaan leeyahay waa wax interesting runtii yani cajiib soo maahan okay waxaan leenahay daraasadan maxay ku talinaysaa okay يعني نتيجة وأركتي حبي الصومالي ساس إنه يهين بحكوا تلنا طلع بحسي ما شرتها أوكي وبلا وحول لي هاي دراستنا حيسوي شيء نسات تلوين مهمة سلوح وتشيو دبعت هذا يرانت فيتامين دي قدوم مركز صومالي كنا الأوروبي يوروب كارهان السويدن استعمال كفيتامين دي ديري قدام ذلك قرح إسهيلين بقول هاي وشركة كل عين وإنه سبلمنت فيتامين دي درادا قاتان أوكي دي بقيس شوكتو عافمات إن عافماتكو هذه كور هيان اللي تانك قرح وبن بحان هذه كور waxbarasho iyo wacyiga dadka in wacyigooda kor loo qaado vitamin D iyo maadooyinka la midka vitamins noocyada kala duwan A B C B12 noocyadiisa kala duwan inay u baahan yihiin in laga wacyigeliyo waayo aqoonta ayaa xalba asaas u ah marka haddaba waxaan leenahay ugu dambeyn soo koob nuxurka daraasadan laba sadar soo koob leenahay xataa Soomaaliga jawaanada kula ku fahmayaan imagine marka waa meesha ugu hooseysa oo qof Soomaaliyeed luqad u baran karo waa luqadiisa hooyo Soomaaliga marka luqadaada hooyo Soomaali bas inaad taqaanid dhammaan daraasad ka soo dunida la sameeyay adoo ChatGPT adeegsanay kaliya baad nuxurkeeda dhuuxi kartaa su'aashaad inta weydiin kartaa yani qof khabiir halkan soo fariisay oo buugi ama daraasadda intuu soo dhuuxay isku soo dhagay su'aal kasta kugu soo dhacda weydiinayso waliba asoo waxa awood u leeyahay sikinka aad weydiinayso intuu soo akhriyo oo kula jawaabta arrinta marka uu noo soo koobay daraasaddan waxay ogaatay in yaraanta vitamin D ay si weyn ugu badan tahay dumarka Soomaaliyeed ee ku nool Sweden taasoo saameynaysa caafimaadkooda lafaha iyo tayada nolosha waxay ku talinaysaa daaweyn joogto ah oo vitamin D dheeri ah iyo wacyigelin ku saabsan helitaanka qorraxda iyo cuntooyinka hodanka ku ah vitamin D mamsa yaa qoray bas aan dhahaynaa goorma ayaa la qorayaa kasii dabageynaa dabcan waa su'aalaha bilowga ahayd inaan dhahno daraasaddan waxaa qoray Tayo Demeki oo ka tirsan jaamacadda Gothenburg Sahlgrenska Academy Sweden meeshaas
goormaa la qoray sanadda 2018 فهمت ma jiraan daraasado kale oo ka dambeeyay daraasadan daraasadan kale ka dambeeyay ma jiraan dabcan internetka ku xiran yahay haddii jiraan uu noo sheegaya search ayuu samaynaysaa ujeedaan internetka ayuu aaday already wuxuu raadinayaa vitamin D Somali women in Sweden after 2018 يعني maadaama daraasadan 2018 la sameeyay inay jiraan buu raadin internetka fiirnaya ha waxa jiruu leeyahay daraasado kale oo la sameeyay kadib 2018 kuwaas oo la xiriira yaraanta vitamin D ee dumarka Soomaaliyeed ee ku nool Sweden mid ka mid ah daraasadan cusub ayaa diiradda saaraysa saamaynta wacyigelinta caafimaadka ku saabsan vitamin D ee haweenka Soomaaliyeed ee uurka leh iyo hooyooyinka cusub markaan hablaha xaamilada ah uurka leh iyo hooyooyinka markaas dhalay ayay focus ka saareen daraasaddu waxay tijaabisay sida talooyinka caafimaadka ku saabsan cuntooyinka hodanka ah ku ah vitamin D-ga iyo soo gaarista qoraxda inay helaan ay ugu wanaagsanaanayaan kobcinta heerarka vitamin D-ga iyo hagaajinta cuntada. Fahmaysaa? Daraasadda magaceeda ii sheeg Ingiriis ahaan. Haddaba inaan sii raadsado ii sheeg aan leh Ingiriisaan iigu sheeg. Talo muxuu samayn doonaa? Yes, magaca daraasadda cusub waa Positive Impact on Vitamin D Related Lifestyle of Medical Advice in Pregnant Somali Born Women and New Mothers. A mixed method study in Sweden, Swedish primary care. English أنا نقول شيء فهمت؟ إن عربي هدانة سؤالي ما دام خلاص نسوق عن عربي أنا يقول شيء هدانة رحتها نظام الدورة. يعني صاحبي يلا وح أعمال بكهلا إنه ChatGPT ويا AI ويا عالم تكنولوجيا درجة هذه ما أنتي سي يتصل تبسايد تصير أو هذا ولي بيلوجي هرب halka saaka artaan ay tahay daraasadda waxay hortaalo yani waxa meesha ku qoran iyo kan hadda isbar bardhigo labadaba waa mataqaanaa tusay carabigu hadda uu noogu sheegay ka ta'thur lijabi limd alhayat almurtabita bi vitamin D binaan ala nasaaxib biyo nisa wakada marka taasoo kaliya maahan hadsalaan ka hadan daraasadda galno kale gudaheedan ku jira waa akhrisanay ka soo qaad waxbaan arkay wixii hadda wax ka faham waayo waa weydiin karaa دراسات كثير كل دوم ويان كان ماشي ويان صار صور كان أركب وحبا كفهم وين أوكي ما كان صراحة أنا متكلم الشباب واك هذا كانوا قلعة قريب تانو كل دراسات آخرني وحبا كفهم وين قريب تان أيام سكرين شوت كقادنا يا أوكي أكو بيسنية وحق الله من يا بأسقي وقول فنيا قريب تان فهن كوبن يوشك si basiid ah wasoo daraasadii sawirka ma soo qaatay inta yarta ii sheegaan yalla sawirkan soo gali meesha xusaman doona talo ana xitaa ma fahansan aragna wuxuu ku fasiro oo soo saara wuxuu leeyahay qaybtan waxay sharxaysaa in 73 dumarka Soomaaliyeed ay daraasadda ka qayb galay ay la ildaran yihiin yaraanta vitamin D ayagoo levelada 25 ay gaarayaan waa ka yalaatay shan daraasaddu waxay muujinaysaa in qiyaasta vitamin D ay si weyn ugu kordhayso dumarka qaadanaya 800 IU ilaa iyo 1600 waa vitamin D noocyada kamid ah maalin kasta marka loo barbar dhigo kuwa placebo-ga qaadanayay waxa la ogaaday in ugu yaraan intaas marka placebo waa maxay fiir waxa la maxaad ula jeedaa placebo okay maqan yani luqad kale wuxuu ula hadlayaa mugtay aan garanay maxaa ula jeedaa waan placebo waa shay aan lahayn wax raad caafimaad ah oo firfircoon waa inta badan loo isticmaalo cilmi baarista si loogu eego saameynta waxa kale marka jaalayaal waxa weeye si kooban hadii la idin soo togol yahay daraasadan arkaysaan anagoo maanta jaabeynay si kooban oo degan ayaanu ku sameynay ChatGPT u marnay waa mid adinkuna qaab kala duwan adeegsan karo hadduu yahay sawir hadduu yahay muuqaal hadduu yahay haddii la ku soo togol yahay buugaag daraasooyin kala duwan arrinta uga faa'iideysan kartaan intaas ku soo koobaynaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideystaan dadka la midka oo jecel waxaana uga faa'iideyn kartaan. Asalaamu calaykum. Markale ka fikra.